maanta waa 24 bisha Magabiid 2018 waxaan u taaganahay qoska dabaaldega sanadguurisideed ee ka soo wareegtay isbeddelkii ka dhacay dalka iyo deegaanka waxaa xusuus mudan 8 sano ka hor dalka inuu saarnaa burbur dhibaatooyin dhaqaale kuwo xorriyad xuquuqaha islaamka lagu tumanayay laakiin dalka waxaa badbaadiyey shacabkii isbeddelka doonka ahaa hoggaamintii xisbigii talada hayay ugu horreeyay wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed inay aqbalaan ayna hoggaamiyaan isbeddelkii shacabka reer Kenya deegaanka Soomaalida isbeddelka dalka ka dhacay lama aqbal hoggaamintii jirta xilliga waa kuwa maanta ku hadlaya 8 sano kadib isbeddelka waan taageersanahay laakiin aan ka garaabaynin gabadhfalladii ay u geysteen shacabka deegaanka Soomaaliyeed weli waxay aaminsan yihiin aragti ah in dhibaatooyinka shacabka ay u geysteen ay keliya kaga dhaafaan fariimaha ay Twitterka ku qoraan baraha bulshada ay soo marayaan kooxahan isbeddelka markuu dhacayay oo kuwii talada deegaanka hayay ee fulinayay fariimihii TPLF inay dalka deegaanka burbur geliyaan deegaanka Soomaalida dantiisa ma ahayn in deegaanka dariska isku dhac laga abuuro shacabka deegaanka Soomaalida dhibaateeyay deegaanka in la burburiyo dhibaatooyin qallaasan la geliyo waa fikirra ay ka soo qaateen mulkiilayaasha xilliga ee hadda 8 sano kadib ilaa iyo maanta ku fikireen dalka inay burburiyaan waad ogtihiin bishii Janaayo 2013 waa kuwii ku weeraray ciidanka qaranka ee difaacaya xuduudaha dalka maanta kooxo badan oo isku raacay oo aan dana siyaasadeed oo isku mid aan lahayn yaa deegaanka ku tilmaamaya waxyaabaha aan mudnayn kooxaha waxaa ugu horreeya xilligii ninkii madaxweynaha ka ah deegaanka ee amray magaalada in la burburiyo magaalada la gubo ee ku hadlayay haddii aan deegaanka ka taga nabad iyo xasillooni ka dhibnaysa burbur baa iga dambayn qallaasaa ka dhici laakiin isbeddelkii lagu maareeyay in dalka iyo deegaanka laga badbaadiyo muddo kadib afkaarta xisbigu uu qaatay ee ahayd wadajir iscaafis walaaltinimo aan ku hoggaamin dhaqanka siyaasadeed ee dalka ayaa fursad u abuuray maxaabiis badan oo dambiilayaal ahaa oo lagu soo eedeeyey inay dhibaato u geysteen shacabkooda inay fursaddaa u arkaan inay cafis ku helaan laakiin cafiska siyaasiga waa in loo garta inuu cafis siyaasiga yahay wixii kale ciddii cafiska siyaasiga garata shacabkeeda raaligelin u weydiisata dhibaatooyinka ka garaawda waa laga yaabaa inay socotaan hesho laakiin weli haddii uu leeyahay dhaqankii isagoo madaxweynaha dadka in la caaye la aflagaadeeyey isagoo bannaanka joogana weli in dhaqankaa la yeesho waan waafaqsannahay waa dhaqan aynayn hoggaamin waa dhaqan uu lagu tilmaamay jiilkii isagoo abamiyey ee ku habeecaayda aflagaada baabi'inta sharafta shacabka mar saddexaad horeyna waanu u baaqnay haddana waxaan leenahay cafiska siyaasadeed ee dalka loo qaatay ma aha tabaryeeli ma aha garasho la'aan waxaa la raadinaya dhaqanka siyaasadeed ee dalka in wax laga bedelo laakiin dhibaatooyinkii shacabka loo geystay weli way taagan yihiin iyagoo cadeyman guddiyo loo xaq saaray shacabka wala wadaagi doonaan waxay ciddii u baahan inay si fiican u ogaatana maalmo dhow saxaafadda la wadaagi doonaa dadka nooca ahna wixii sharciga ay ka helaan yay mari doonaan deegaanka Soomaaliyeed 8 sano kadib xasillooni siyaasadeed
deganaansho talo waddanka loo dhan yahay horumar ballaaran deegaanka shalay ku taqaaneen amni maala nabadgelyo male kuwii intuu dowladda aad abuuraysa amni darro maanta deegaanka waxaa ka socdo mashaariic ka badan $12 milyan oo dollar oo shacabka Soomaaliyeed ay fursad u heleen isbeddelka kadib waxaan shacabka ka codsanaynaa wacyigoodna kor u qaadaan kuwii shalay dhibaateeyay inay dib u raareen isbeddelka ay taageeraan dowladda iyo nabadgelyada in cid shacabka dhibaataysay weli u hiilan ku faraxsan dhibaatada shalay geysay in sharciga la mariyo horumarka baaxadda leh ee ka muuqda caasimadda deegaanka ee Jigjiga ayaa ka mid ah midhaha 24 magaabid duqa maamulka magaalada Jigjiga injineer Shaafi Axmed ayaa xusay in isbeddelka ka dhacay dalka uu suuro galiyay in magaalooyinka deegaanka ay ugu horeyso Jigjiga ay noqotay tusaalaha horumarineed iyo dalxiiska waxaan idinku ambaliyaynayaa maalintan quruxda badan oo ah magaabid 28keeda guud ahaan maalinkii dalkan uu ka dhacay isbeddelku sidaad ogtihiin 24 magaabid waa maalinta isbeddelka dalka uu ka dhacay isbeddelkaas oo runtii wax weyn ka bedelay nolosha shacabka sidaad ogtihiin deegaanka waxaa ka jiray dhibaatooyin waaweyn oo nabadgelyo dhaqaale iyo saasoo kale bulshada kuwaas oo dadku ay ku qabeen dhibaatooyin waaweyn oo naftooda cirdigooga iyo xoolahoogaba ayna u haysan wax damaanada guud ahaan isbeddelka ka hor magaalooyinka dalku gaar ahaan kuwa deegaanku waxay ahaayeen xarumo ciidan waxaa dhibaato ka jirtay oo lagu dhibaateynayay dadka ku nool magaalooyinka ee birimageydada saad ogtihiin isbeddelka kadib waxaa magaalooyinka lagu sameeyay isbeddel weyn oo dhaqaale nabadgelyo iyaga oo noqday xarumaha isbeddelka iyo dalxiiska ee guud ahaan dalkeenna saad ogtihiin waxaa Jigjiga u tahay tusaale fiican guud ahaan isbeddelka magaalooyinka ee dalkan ka dhacay waxaan rabaa inaan u sheego kuwii shalay magaalada Jigjiga gubay in magaalada Jigjiga maanta ay ka raysatay isla markaana ay noqotay xarun qurux badan iyagana ay u taala taariikh madow oo ah inay magaaladii gubeen hantideeda boobeen gabdhaheeda kufsadeen dhul iyo guriyaba ay iyagu qaateen waxaan rabaa inaan u sheego shacabka deegaanka Soomaalida iyo kan magaalada Jigjiga inayna ahayn umul oo ayna iloobin taariikhdii madoobayd iyo falalkii dambiyada ee lagu sameeyay caasimadda iyo deegaankaba guud ahaan shacabweynaha deegaanka iyo gaar ahaan kuwan caasimadda waxaan u dardaarmayaa inay ilaashadaan nabadgelyadooda isla markaana ay si joogto ah ula socdaan dhibaatooyinka iyo dhagarta cadawga uu ku maleegayo shacabkeena sharafta leh saasoo kale waxaan rabaa inay nagala qayb qaataan in deegaanka iyo caasimadaba ay ka qabsoonto doorasho nabada cadaalada isla markaana ay qaataan dhammaantood kaarka codbixinta xifdiyaan isla markaana ay ula soo baxaan maalinka codbixinta si nabada waad mahadsantihiin hambalyo isbeddelku hawaaro Suldaan Farxaan Maxamed Axmed oo ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka ayaa tilmaamay in isbeddelka deegaanka iyo dalkaba ka dhacay uu horseeday nabadgelyo iyo horumar taabagalay shacabweynaha maamulka magaalada Jigjiga haweenka dhalinyarada iyo dhammaanba mas'uuliyiinta maanta madasha ku sugan waxaan leeyahay hambalyo bagaan nabad ku gaadhnay maanta sidaan ognahay 24ku waa maalintii isbeddelka horumarka uu ka curtay dalkan oo hormuud u ahaa Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalku maanta waa maalin weyn xagga siyaasadda markaan nidhaahno ka dal ahaan haddii aynu eegno innagu ka Soomaali ahaan agaar baan ka ahayn maantana waxaan joognaa meelaha laga arrimiyo haddaynu nidhaahno xagga nabadgelyada
waxaynu ogeyn shalay toole deegaankeenna sida uu ahaa maantana waxa uu tusaale u yahay dhammaan dalka oo dhan waxaana sabab u ah shacabka iyo dhammaan mas'uuliyiinta meesha ku sugan xagga horumarka iyo dhaqaalaha haddaynu eegno maanta waxa deegaankeenna ka jira horumar ballaaran tusaale ahaan xarunta Shabeelley goday warshadaha waaweyn ee ka socda xagga wadooyinka iyo horumarinta ballaaran ee dalkan marka waxaan oran karnaa maanta inaga waa roob wanaagsan oo inoo curtay marka maalin wanaagsan weeyaan 24 bishii Magaabiid sanadkii 2010 waa tirsi taariikheedka dalkan Itoobiya ayay ahayd markii uu guud ahaanba dalkani ka dhacay isbedelka ee uu talada dalkana la wareegay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka ee dalkan Itoobiya Dr. Abiy Ahmed maalintani ayaana sidoo kale ku aastaysan ballanqaadyo lagu dhisayo rajada mustaqbalka jiilka berri kuwaas oo guud ahaanba haatan dalka uga socda si dardar leh